kulanti habboon saaxiibayaal warbixintan waxaynu ku eegi doonaa wararka ka soo kordhay weerarka Ruushka iyo iska caabinta Ukraine. Geesta kale waxaanu idinkula wadaagi doonaa warbixino ku saabsan qiimaha saliidda oo qaaliyoobay iyo lacagta Ruushka oo hoos u dhac ballaaran ku yimi. Maalintii shanaad ee dagaalka habeen adag ayay u ahayd Kiev, dagaal ba'an oo ka dhacay magaalooyinka Ukraine iyo duqeymaha Ruushka oo burburiyay diyaaradii xamuulka ahayd ee ugu weyneyd adduunka. Qaraxyo dhowr ah ayaa xalay saqdi dhexe ka dhacay magaalada Kiev ee caasimada dalka Ukraine, waxaana isku dhacyo rabshado wata ay ka dhaceen waqooyiga magaalada, halkaasoo ciidamada Ruushku ay isku dayeen inay xakameeyaan maalintii shanaad ee weerarka. Baarlamaanka Ukraine ayaa cod aqlabiyada ku ansixiyay in dalka lagu soo rogo xaalad degdeg ah, iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine oo ka socda magaalooyin badan, waxayna labada dhinacba shaacinayaan inay khasaare xooggan gaarsiiyeen dhinaca kale. Wakaalada wararka Russia ee Interfax oo soo xiganaysa wasaaradda difaaca dalka Ruushka ayaa sheegtay inay jiraan dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay ciidankooda intii uu socday dagaalka ay ku qaadeen dalka Ukraine, waxaana la sheegay in dhowr askari oo Russian ay gacanta ku dhigeen ciidamada Ukraine. Wararka ayaa sidoo kale sheegay in duulaanka Ruushka uu ku burburiyay garoonka diyaaradaha ee Antonov ee magaalada Gostomel, diyaaradii ugu caansanayd ee laga lahaa dalka Ukraine, halkaasoo diyaaradda dayactir loogu sameynayay. Diyaaradan oo dhererkoodu yahay 84 mitir ayaa waxa ay qaadi kartaa xamuul dhan 250 tan iyadoo jaraysa xawaaro dhan 850 kilomitir saacadiiba. Dhinaca kale, Oleg Senagubo oo ah sarkaal maxalli ah oo ku sugan magaalada Kharkiv ayaa xaddii sheegay in magaaladu ay dib ugu soo laabatay gacan ku haynta ciidamada Ukraine saacado yar kadib markii uu ku dhawaaqay imaanshaha ciidamada Ruushka ee bartamaha magaalada. Wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Oleksiy Arestovich oo ah la taliyaha madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in ciidamadoodu ay burburiyeen kala badh baabuurta Ruushka ee soo galayay magaalada Kharkiv. Kharkiv oo ay ku nool yihiin 1.4 milyan oo qof waa magaalada ugu weyn ee ku taalla waqooyi bari Ukraine, una dhow xuduudda Ruushka iyo dhulka ay maamulaan gooni-goosadka ee Donetsk iyo Lugansk. Dhanka koonfurta, ciidamada Ruushka ayaa isku dayay inay la wareegaan gacan ku haynta Kherson iyagoo kasoo kicitimaya gobolka ku xigay Crimea oo ay maamulayeen tan iyo 2014. Geesta kale, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa xaddii ku dhawaaqday in la burburiyay 1,070 goobood ay leeyihiin ciidamada Ukraine tan iyo markii ay bilowdeen howlgallada militari ee Khamiistii. Wasaaraddu waxay sheegtay in ay soo saartay in ciidamadeedu ay qaadeen weeraro cusub oo ay ku adeegsadeen hubka ridada dheer, gantaalada cirka iyo badda, kuwaasoo lala beegsaday xarumaha kaabayaasha militari ee Ukraine. Geesta kale, waxa uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin heegan geliyay ciidamada sida gaarka ah u tababaran iyo kuwa difaaca nukliyeerka. Putin waxa uu ka yidhi telefishinka dowladda, sida aad arki kartaan, ciidamada reer galbeedku ma qaadaan tallaabooyin cadaawadaan ahayn oo ka dhan ah waddankeena oo aan ahayn keliya dhinaca dhaqaalaha. Waxaanu la jeedaa cunaqabataynta sharci darrada ee qof kastaa si fiican u garan karo, ilaa xataa madaxda sare ee wadamada ugu waaweyn NATO ay ogolaadaan inay hadallo cadowtinimo ah ka sheegaan dalkeena. Diyaaradaha Ruushka ayaa maalintii shanaad oo xidhiidha sii wada duqeymaha ay ku hayaan garoomada ciidamada Ukraine. Ujeedaduna waxa ay tahay in la curyaamiyo ciidamada cirka ee Ukraine. Isku dhacyo ayaana ka socda Kiev, gaar ahaan dhanka waqooyi ee magaalada. Geesta kale, qiimaha saliidda ceeriin ayaa sare u kacay bilowga ganacsiga toddobaadlaha ee Isniinta, sababta sii kororka walaaca juquraafiyeed iyo walaaca amni ee bariga Yurub oo u dhexaysa colaadda Ruushka iyo Ukraine oo ay reer galbeedku taageeraan. Habeenkii Sabti ee lasoo dhaafay, cunaqabatayn dheeri ah ayaa lagu soo rogay bangiga dhexe ee Ruushka. Cunaqabataynta ay saareen wadamada ay ugu horeeyaan Mareykanka, Britain iyo Midowga Yurub ayaa waxaa ka mid ah in la xayiro hantida madaxweynaha Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov iyo tobanaan bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda. Lacagta rubalka Ruushka ayaa hoos u dhacday halkii ugu hooseysay ee doolarka Isniintii kadib markii lagu dhawaaqay cunaqabataynta. Doolarka ayaa kor u kacay 41.50 boqolkiiba, isagoo gaadhay heerkii ugu badnaa oo 119 rubal u noqonaya halkii doolar wax kala iibsiga Asia. Doolarka ayaa kor u kacay ilaa iyo hadda bishan 350.77 boqolkiiba marka loo eego rubalka.